أولا waxaan leenahay shaqa socota asbuuciyada tan socotay shaqa balaaran bay ahayd oo gobolka bari ka socota gaar ahaan degmada Boosaaso ciidamadu ay howlgalla adag kaga jireen iyo magaalada daafaheeda meeshaan hadda taagannahay waa kantaroolka Boosaaso xilliga iyo waqtigu yahay waad aragtaan iyo sida baaritaanku uga socdo sida shaqadu u socoto oo ciidamadu ay shaqada u hayaan baan sheekaraynay oo soo baxnay waxaan rabnaa dadweynaha inay si dhow laamaha ammaanka dhamaantood ciidamada shaqada ku jira noocay yihiinba hadday bilis yihiin iyo hadday daraawiish yihiin iyo hadday BF yihiin iyo hadday BMF yihiin kulligood si wada jira waxaan leeyahay inay kula shaqeeyaan laamaha amniga oo gacan uga siiyaan dagarqabayaasha iyo kuwa dhibta ku wada oo ay xaqiijinayaan xilliga waxay u soconayaan haddii nin lagu seexdo waxa seexan weey shaqadoodii waajibkooda gudanayaan waana mid laga doonayo ciidamada baan si kala dhahayaa iyagana waxaan leeyahay ciidamada aan shaqada ku jirin oo loogu talagalay inay goobaha ka shaqeeyaan oo aan shaqada iyagu ku jirin horena waan ugu sheegnay waxa looga baahan yahay inay goobahooda ku sugnaadaan askarigii dambe oo suuqa laga qabto waarantaan u jareena qorigana waa laga qaaday ganaax baa ku dhacay mushaarka laga joojinaya ma dhici doonto askari suuqa soo aadi kara waxa laga rabaa askari walba goobtiisa shaqada inuu joogo qofkii doonaya inuu meel aado isagoo dharcad oo tartiib inuu maraa rabo laakiin askari qori dharcad iyo qori isku sita ma maqli karo isaga gaar buu ka yahay waarantii waa go'an tahay kamadan ka goyn ciidamada amar baan ku bixinaynaa in la qabto oo aan anaga xataa loo keenin saldhiga hore laga geyn doono haddii kale waa inuu goobiisa ku sugnaada mid kasta waa la farayaa askari walba oo saldhig ka tirsan rug ka tirsan ciidan daraawiish ka meel kasta ka tirsan goobtiisa la rabaa inta shaqada ku jirta oo loo igmaday oo saraakiishu hogaaminayso iyagana waxa la rabaa si dhib yar oo aan dhib lahayn oo dadka soo dhaweyna oo loo dhibrinayo oo haweenka iyo ciyaalka iyo odayaasha iyo isimada iyo cid walba maraysa magaalada waxaan ka rabnaa ciidamada si dhow iyaguna inay dadka ugu shaqeeyaan xilli kasta bay taagan culimadu markay sheegayaanba shaqada aynu ku jirro xilliga taaganahay waxay la mid tahay aslaaxu baynanaas mid ugu fiican weey sababtoo ah asxaabihii xilliga ay dagaalada ku jireen waxay ahayd inay dhaxan taagan yihiin kuleel taagan yihiin gaajo taagan yihiin annaga xaq bay nagu tahay inaan saacad walba taagnaano ciidamada dhamaantood waxaan leeyahay shaqo adag baa ku jiraan aad baan idinku mahadcelinayaa shaqada qabateenna boqolkiiba boqol waxaan leeyahay Allah ihsaanaadkeeda Allah in siiyo laakiin iyadoo aad taa qabateen waxaan mar labaad ku celinayaa in dadka loo dhibriyo oo si dhow saraakiishuna waxaan leeyahay ciidamada inay la socdaan oo kuwa la socda sida aniga hadda raga hareerahayga taagan oo shaqada ku jiray oo aan meeshaan isugu nimi waxaan ka rabaa sidii caawa u shaqeynayeen oo aan soo maray goob kasta oo laga shaqeynayay in dadka si wanaagsan loola dhaqmo si degan wax loogu sheego hadalka wanaagsan waa sadaqo weey sadaqada ina ka qayb qaadanaa la rabaa mideena aynu xilligaas soconaynaa sadaqa iyadana waxa la rabaa ciidamada sidoo kale waxaan leeyahay ilaahay laga cabsado hal la tukado ilaahay hal isku xiro iyada aynu ajar iyo xasanad kaga helaynaa laaban inaynu dhaxanta u taagnaano sida la adligeed ciidamada kantaroolka iyo kuwa joogana waxaan leeyahay sida u shaqeyseen si laba jibaaran u shaqeeyo waa inay mahadcelinaya ina qabateen qalab isgaarsiineed oo gaalkacay laga soo raray oo boos lagu qabtay inta kantarool soo dhaaf taliska booliiska waxaan iska nid saa ka jawaabi doona oo ciidamada amarkooda bixin doona annagu waxaan sheegaynaa inay aad iyo aad u mahadsan yihiin shaqada ay qabteen inay si laba jibaaraan baan rabaa faanoole farikama qodnay iyaga labtigooda waxaan leeyahay shaqadin laba jibaara halka ka sii xoojiye sida hadda waardiyaha iyo heeganka ugu jidaan xilliga si ka daran inaa u sii qabataan baan doonaya haddii Allah idin aad iyo aad baa u mahadsantiin dhamaantiin waan salaamaya